jenaraal odawa yuusuf raage oo xasan sheekh ka yaabiyey xaalad cusub oo soo korortay saraakiisha kala duwan ee ciidamada oo madaxweynaha ku wargeliyay inuusan xil ka qaadi karin jenaraal odawa haddii ay taasi dhacdana ay xeryaha faarujin doonaan lama shaqayn doono madaxweyne taliyaha cusub ee aad noo soo waday ayuu yidhi sarkaal ka mid ahaa saraakiishii madaxweynaha fariinta u diray munaasabadii shalay ee kooda luuliya ciidamadii ku sugnaa ayaa madaxweynaha ku wargeliyey inuusan tallaabo ka qaadi karin saraakiisha ciidanka uusanna ka bedeli karin hogaanka ay hadda haystaan jenaraal odawaagan oo yahay ninkii ugu wanaagsan ee ciidanka hogaamin lahaa waa galwaradii warbixin degdega hadda ay naga soo gaartay fila soomaaliya madaxweyne xasan uu ku fikeriyay inuu bedelo hogaanka ciidanka ayaa la laabtay durbaba ee shaargaray oo ku faafiyay dunida meelba ku tuur muuqaalka janaal keena sabskribe soo saaray sidoo kale beejkeena galwareed soo falowgaraya waa hagaag aan ku bilaabo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya xaalado kala duwan oo adag saraakiisha ciidamada ayaa ku kacay tallaabo uu qaadi lahaa ay si toosa u burburiyeen maalinimadii shalay maruu ka qaybgelayay munaasabada uu markaasi ubaxa ku dhigayay taalada dhagaxtoor ay ciidanka soomaaliyeed kula hadleen halkaasi qaarkood ayaa fariimo u diray sidoo kale aalada whatsappka ay kala soo hadleen waxay ku wargeliyeen madaxweynuhu inuusan qaadi karin tallaabo uu rabay maalmahan inuu qaado oo ahayd inuu xil ka qaado odawaa yuusuf raage laguna bedelo sargaal kale oo aan magaciisa idiin sheegi doono saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud fariimaha ay usoo direen waxay gebi ahaantood ku qotomeen sidai uga welwelsan yihiin in la bedelo odawaa yuusuf raage waxay sheegeen in odawaa yuusuf raage uu yahay nin dhalinyaro ah aada u firfircoon islamarkaana fahamsan howsha ciidanka ayna la shaqayn karaan mudan madaxweyne ma dooneyno inaad bedesho hogaankeenna odawaa yuusuf raage waa ninkii ugu wanaagsanaa ama ugu habboona eena hogaamin lahaa ma garanayno nin kale oad noo keeni lahayd oo ka wanaagsan odawaa yuusuf raage howsha ciidanka qaranku aaday u kala socotaa waa nin qalbi wanaagsan oo dhalinyarada la dareen ah dhalinyaro ah oo sidoo kale ciidanka fahmi kara wiilal iyo gabdhaba ayuu ku yidhaahdeen qaar ka mid a saraakiisha oo fariin usoo diray sidoo kale sargaal ka mid a saraakiisha madaxweynaha lasoo hadlay oo fariintiisa aan helnay ayaa yidhi mudan madaxweyne waxaan maalmahan maqlayn inaad damacsantahay inaad isbedel ku sameydo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed odawaa yuusuf raage taliyahan oo tan iyo 2018 soo hogaaminayay waa nin wanaagsan oo aada noola shaqeeyey waxaan aaminsanahay inuusan jirin sargaal kale oo aad ku bedeli lahayd hogaanka ciidanka xoogga dalkana qaban lahaa mudane madaxweyne waxaan kaa dalbanan in arrintaasi aadan samaynin odawaa yuusuf raage u sii daa hogaanka ciidanka xoogga dalka sababtoo ah isbedel weyn ayuu ku sameeyey waxayna ka kaliftay arrintaasi in dhalinyaro badan oo soomaaliyeed jeclaadaan inay ciidanka qayb ka noqdaan sidoo kale sargaal kale oo fariintan usoo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku yidhi mudane madaxweyne xasan waan ognahay maalmaha inaad ku fikiraysa inaa isbedel ku sameydo hogaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaad ogaataa haddii aad odawaa yuusuf raage xilli ka qaado inaadan ciidanka soomaaliyeed qulubtooda sii hanan doonin waxaa dhici doonta in xeryaha faarujiyaan wada shaqayn la-aan ay meeshaasi kaaga bilaabato haqaadin tallaabadaasi odawaa taliyo ka wanaagsan uu helaysaa himo jire waa nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahana islamarkaana si weyn ciidanka ugu dhex milmay wax badanna ka fahamsan hogaanka ciidanka iyo sida saraakiisha kala duwan ay u shaqeeyaan hadday ay dhacdo inaad tallaabadani qaado ay saaxiibada kugula taliyeen wayba kugula talin doonaane waxaad ka dhexli doontaa tafaraaruq cusub iyo in ciidamada aad weydo hogaankooda ayuu yidhi sargaalka usoo diray fariinta madaxweyne xasan sheekh maxamuud aalada whatsappka ayuu fariintaasi kula soo wadaagay sidoo kale waxaana soo gaaray qaar ka mid a nuqulada fariimo ay saraakiishu usoo direen madaxweyne xasan laakiin dhammaantood sooma wada qaadan karno sidoo kale saraakiishii kula kulmay madashii loogu dabaaldabayay kooda luuliyo ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dalbaday inuusan qaadin tallaabo isbedel loogu sameynayo hogaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay u sheegay inay tallaabadaasi noqon karto mid khatar ku ah hogaanka ciidanka xoogga dalka madaxweyne xasan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday isbedel weyn oo ku sameynayo ciidanka xoogga dalka warar kala duwan aan helin ayaa sheegaya inuu damacsanaa inuu bedelo jenaraal odawaa yuusuf raage iyadoo lasoo celinayo daahir aadan cilmi indhaqarshe oo horey u sooqday taliyaha ciidanka xoogga dalka indhaqarshe waa da 80 sano sare u dhaafay waxayna aaminsan yihiin ciidanku inuusan hogaan u noqon karin maadaama dhiig cusub oo ku jira ciidanka xoogga dalka tababar caalami ay haystaan islamarkaana loo baahan yahay inay helaan hogaan ciidan oo furimaha dagaalka ku horboodi kara
haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qado tallaabadan ay ciidamadu durbo oga digayaan waxay abuuri kartaa in dowladda madaxweynuhu ay jilbaha dhulka ku dhufsato, maadaama mar haddii aysan dowladda ciidan haysan ay khatar weyn wajihi karto. madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si weyn isugu xil saaray inuu dhiso ciidanka xoogga dalka, isagoo hoggaan dhalinyaro ah u dooray. arrintaasi waxay dhexalsiiday madaxweyne farmaajo inay ciidanku jeclaadaan, islamarkaana hadda ayba ka qayb qaataan olole loogu dhisayo guri madaxweynaha. haddii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu markaasi sii joogi lahaa, waxay aaminsan yihiin ciidamadu in horumarkooda uu sii socon lahaa iyadoo bilihii lasoo dhaafay aan wax tababar ciidamada loo furin, sidoo kale aan loo darin dalka dibadiisa. hogaanka ciidankuna ay khatar ugu jiraan in markaana ay shaqooyinkaba ka fariistaan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la taliyayaashiisa dhinaca amniga oo aada markaasi looga xunto inay yihiin dad aan aragti fog lahayn, waxay kula talinayaan in dahar aadan cilmi indhaqarshe loo dhiibo hogaanka ciidanka xoogga dalka. indhaqarshe waa aqoon-yahan, waana dagaaladii dalka ka dhacay iyo kuwii wuxuu kasoo qeyb qaatay dowladdu ay la gashay dalka ethoobiya, laakiin ma muuqato sabab dahar aadan cilmi indhaqarshe hadda loogu dhiibay hogaanka dalka, maadaama ciidamada xoogga dalku ay yihiin dad firfircoon oo dhalinyaro ah. waana sababtay u dooranayaan in hogaankooda uu noqdo nin dhalinyaro ah oo fahmi kara duruufaha ay ku shaqeynayaan. indhaqarshe ayaa dhowr jeer hogaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed soo qabtay, waxaana 2018 lagu bedelay odawaa yuusuf raagay oo ahaa nin dhalinyaro ah dalka dibadiisa wax kusoo bartay, islamarkaana fahmi karay duruufaha ay ciidanka soomaaliyeed ku shaqeynayaan. markaad eegto xaaladaha kala duwan ee dalka uu wajahayo iyo sida dowladda soomaaliya ay ugu markaasi lug leedahay hogaanka ciidanka iyo isbedelka lagu sameynayo, waxay tani muujinaysaa in dowladda soomaaliyeed ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aysan hadda xamili karin inay wajahdo cadaadisyo kala duwan oo dhinaca ciidanka kaga imaanaya, maadaama arrimo siyaasadeed oo baahsan ay ku kacsan yihiin. in ciidanka xoogga dalka soomaalida hogaankooda uu noqdo nin lagu kalsoon yahay oo ciidanku iska wada dhex arki karaan inuu mustaqbalkooda hagaajinayo, waxay ka dhigan tahay in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay markaasi u hagaagi doonto sida ay damacsan yihiin. laakiin haddii kooxda damir jadiid oo madaxweynaha ku xiran ay kula taliyaan inuu bedelo hogaanka ciidanka, waxay noqon doontaa caqabada horleh oo ka hor imaan karta. mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda ayaa la sheegay inuu hadda khilkhil ku jiro oo dowladdu ay bixin la-dahay. haddii mushaar la-aan iyo hogaan xumo ciidanka la isugu darana, waxay sababi doontaa inay isbaarooyinku bataan, islamarkaana ciidamadu kasoo horjeestaan dowladda oo ay markaasi u arki doona inay tahay cadowgooda. al-shabaab ayaa xarkaas soo goosan kara oo ku fikir kara inay dalka qabsan karaan, maadaama ciidankii soomaaliyeed oo moraalkoodu jabay. dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu xantaa inay tahay dowladaha ugu fadhiidsan dunida, iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud hore loo soo tijaabiyay hogaankiisa, islamarkaana oo dhowr jeer gaar ahaan 4 sano oo lasoo dhaafay 2012 ilaa 2017 oo dalka madaxweyne ka ahaa. shargar iyo xogaan qaybta faarada nugul wadaag aragtidii intan iyo kulanti dambena nabadgeliyo.